nashqada makeeche sudar muxuu ma waayna waa doctor adiga iid ayaa soo dhow sutar hooyadiisna balan meesa qabsanayada maqaarka waba ka bukaday bariyahan adiga daawo marsamaya eedo hee biyo kuleel ii keen waaya gabadheeda mahadsanid tinaaba ka soo baxday sakiin ma isticmaasha adiga heer muuf anigaaba ku mariye maxaa dhacayna inta saa igu filan hadda maanta wax kale ma u baahnay haddii cidiyaha aad samaysatid ka waran nashqado badan oo gabdhaha samaystaan ayaan ku hayaa si fiican u fiiri waa ku keenay mahadsanid ma ka heshay waxda u baahatay isoo sheego ku keenaya okay mahadsanid hooyada waxay og tahay ma lahan adiga yaa tahayna ha joojinin hore u sii wad sawirada waad fiiri kartaa fiiri kurbash naanees fiican waaya katiinadan aad ayay u qurux badan tahay laakiin kashmiir ayada lagama helo xageed ka keentay suuqa madooba mise kuslii suuqa la yiraahdo ilaa xuduudka mar walba laga gudbay iska baxa ku dhiila orod bax waxaan ka ogaa malaan iska bax aniga su'aalo ma ku weydiinine burhaana burcad ma ahaya بليس وكبريا وانين هاليا نينكاس اسكبح ساعة مركو جيجي كتاك عيدن كينو وحي رفان هاشيغان لكن ساني وحي يقال ملهان لكن سكشمي رودان برهان اي تاغير سانتاهي سابين انيغا هدي انبحو قفك إبدالايو قف دقن منقونايو نينكانا إلا أفر إلا شناق أيو شكان صدا لابا سبورا أي جوغان من سبورا أي جوغتا أيضنا مدى وقدم بيسانا لابالكود أي جوغتا مرول بوحن كوديلا والدين تاذا كفكر أذيقا أباها ودنها أيو كحنوسيان سو ماهان هدي بوليسكي أيكو قبطان دادك هورتودان أيكو كحيان كدمنا غاري كساران أباها سيدون نقن كرا هادو حنوسانايا qofaana ku jecleen dartiisa wax walba ha u sameeynin faamilkaagana naftooda halisa gelinin qofaan ku jecleen dartiisa waxba ha u sameeyn aaw burhaan ii sheeg waaye haddii sidaas tahay mudana qoor burhaan ayaan warbixin ka helay 12 barkii karkood ayuu imaanayaa hadeertan tilaabada waa inaan qaadnaa maya shirqool ay noqon kartaa tilaabaha qaadin jabriyan ugu horaan wax ka ogaanaya kadib waan ku fasixi doonaa u kaadi mudane warbixin buuxda ayaan ku soo gudbiyay sirdoonada militariga gurigaas indhahay ku hayaan 360 mitirna kama arki karno micnaheega dhanka waqooyi ay guryaha dhan ka soo xigaan qof aduun arkan howlgalkeena u dhamaatay midda ugu muhiimsanaa waxay tahay zoniya arinkan adiga mar horan ka hadalnay ninkan 6 bilood ayaan daba socday wax walba waa inaan arkaa meeqa faasilada gudaha waa ku jiri karaan waayid 20 ilaa 25 qofood waa ku jiraan waliba dumar iyo caruur badan okay meelaha laga gali karo waa kuwan halkan iyo halkaas iyo halkan major kumar oo araalay ka socdo ayaa teamkan hogaaminaya teamkiisana dhankan koonfurta ay ka soo galayaan wasiim adiga teamkaaga dhanka bari ka soo gala aniga teamkaygina dhanka galbeedaan ka soo galaynaa badana adiga marwada la jooga dhanka waqooyina waardi waynaad ka qabataan korna ka fiir waxa soo macada okay مدن قبر فسح كم صوصين سمعنا يا برهان لو بجر أيو نجبحصدي مدرس مسؤولية ذن قوار أي قاعدنا أيو صوبته معلول بجبريل أيو ربحين كسوغا نكاس نوابين له إيه من أسقو إيمانا يا جوهان أرنكاس هل ودو كليا لجوه أنكرا أديكو ماشان وردية كأ سيدا وحنا ودن أيو جودعين إديجس مسا صافية وحياة وحجر أديكنا هذا كنترول كده أنا جنا سيدا وكل أوجعنتين ولي بكبحي ISI كورن operation ka inuu dhacay ma ogeyn mi ayaga ma ogeyn taas bargada baashaan aniga ayaa la hadlay mid kale waxaad ogaataa meeshan waxa ka socoto sheekada Falastiin ka socoto meeshan ayaana la keenay ma qasana ayaan sidaan ahayn anaga cidna caawinaysa ma laha hadda way maskax maalti maadidna ii sheeg waa iska hadlaysa oo kali taas macquul miyaana markay sheeg masar ataliyadii ma ilowday gurigan inaad marti aad ku tahay dhammaanteen xanuun waxa nagu ay soo maaha geerida burhaan cabdalle hadda tacsida burhaan ayaa noo talso annaga intaan dhaxdeena ka dagaalayn inaan dhaxdeena ka heshiina ayaa loo baahnaa oo ninkaas aan lagu cidlayn geerida mar baa daatahay xurnimadoon looma baahna in aad dab basiin ku sii shubtid waxaa loo baahan yahay xanaaqaaga in aad kontarooli kartid waxaad sameeyahana aad ka fiirsan kartid hadda annaga waxaan ogala baahan yahay sidii magaalooyinkaan ku gelayn in aan ka fikirno si weliba caqliyeysan looma baahna marka isdhinacyaa iyo maxaa la dhihi lahaa ishaafalata qof walbaba oo samaynayo wuxuu rabo hadda waxaan rabnaa arbaca walbaba taariikhda in aan bedelno waxaan kaloon u baahannahay dhallinyaradoo dhan in laga dhaadhiciyo jihaad waxaan kaloon u baahannahay guri walba oo la weerarayo in macnaa la calaamadeeyo waxaan kaloon u baahannahay dhammaan shacabkoo dhan in dhagxaan loo qaybiyo maxaa yeelay dhagxaantu hubka ayay ka mid yihiin shidaal waa in loo qaybiyaa waddankan hindiya
oo buudiistaa waxaan rabnaa inaan cashar tusno annaga jihaadku in uu dhab naga yahay waa in aan u caddaynaa hindiya xurnimadeenna waa in aan xoog ku raadsannaa burhaan maalinta la duugaayo dadka hindiya oo dhan waa in ay khalkhalaan oo cabsigelin aan ku samaynaa calanka bakistaanna heeskiisa guri walbaba waa in laga shidaa waxaan rabaa aniga rabitaankeenna in uu hirgalo oo aan hirgelino waxaa soo bixi doona burhaan cusub burhaankaasna hindiya wuu khalkhalinayaa dagaal cusubuuna ku bilaabayaa dadweynuhu waxaan idiin sheegayaa burhaanka cusub oo hogaaminaya shacabka waa sakariye haddeertaan waxaa la gaaray xilligii annaga aan argudan lahayn dowladdan indiyana mar walba waxay u malaysaa ayada annaga inaynaan diyaar ahayn laakiin waxaan u sheegaynaa haddeertaan annaga inaan diyaar garownay dilkan maalin walba ay samaynayaanna waa uu sii socon doonaa hal burhaan ayaga haddii ay dilaan waxaad ogaataan guri walba oo magaaladan ku yaalla burhaan cusub ayaa ka dhalanayo intee burhaan ayaa iga dili karaan ma ii sheegi kartiin aniga waa maya sooma waa u dagaalamaynaa waa baabi'inaynaa hindidan annaga soomaa ka wayan ka siinanaa kulligooda annagii bakistaan maxaan isku nahay maxaan wada aaminsannaani ayaga hindida waa ka argudanayna soo maahan kulligood waan baabi'inaynaa maaho waan baabi'inaynaa soo maa waan argudanaynaa soo maahan annaga waan argudanaynaa maaho kashmiir maxay ka mid tahay kashmiir annaga iskale waan dagaalamaynaa kashmiir annaga iskale xisbiyada mucaaradka uu hogaaminayo burhaan waali ayaa waxaa la sheegay buuq iyo qallaas inay magaalada ka dhaceen buuq iyo rabshado iyo dagaallo iswataa dagaalkaasina wuxuu u dhexeeyey booliiska iyo dadka shacabka dhaawacyadoodana waxaa la geeyey isbitaallada ugu dhowaa meesha burhaan waani oo ah nin uu master dhalay ee isagana ciidamada security forceska 8 Julaay ayay xabad ku dhufteen gabadh meesha joogtay ilaa haddana kashmiir waxa ka socda banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday hindiya howlgalkan cidda fasaxdiya tahay ma noo sheegi kartaa qadarna ma soo ogeysiisay oo kaale waxaan ku weydiinaa meeshaas burcad inay joogto adiga ma ka warhaysayna maya warbixintana waxay igu soo gaartay burhaan oo kaliya meeshaas inuu joogo okay caruur iyo dad kale inay meesha ku sugnaayeen waa ka warhaysaa ma ogeyn aniga qof kamid ah haday wax soo gaar lahayn ama baxbad ay ku dhici lahayn ka waran maxaa dhici lahaa burhaan ayaan dilna soo maahan anaga weliba anagoo cid wax gaarsiinin maya lama dilin weli maya isaga maada dilin laakiinse ogow asaga kora u sii qaaday kashmiirna waxaad ogaataa shuruuc iyo weliba system inay u yaalaan haddaa kasoo horjeestana wax kugu dhici karo waa la socota dabcan warkayga madaxaaga ha galo adiga dadka kaa saree wax sharaf ama ixtiraam intaba uma haysid sababtoo ah waxaa cad hadda hadalkayga xitaa inaad ka tilaabsatay sababta maxay ta marka taas waxaaba sii dheer ciidamada securityka oo forceska ayaad ka soo qayb gelisay dagaalkan weliba cid kuu fasaxday ma aysan jirin dadaal intaasoo sana lasoo samaynayay iyo waxyaaba intaasoo sana lasoo dhodhoorayay ayaad daqiiqad gudahooda ku burburisay taasna waxaa u sababa madax adeegaaga amar diidda maasaan ku wadayaaday kashmiir maanta way gubanaysaa holacaana ka kacayo waxaasoo dhanna mas-uuliyaddeeda adigaa iska leh qofka laga saaraya dusha haba yaraatee ma jiro maskaxdaada geli taas delhi ayaa lagu bedelayaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan halkan ma sii joogaysa